xogayaha degmada Xaradheere iyo shacabka ayaa si diiran u soo dhaweeyay bilowga qaadashada kaarka codbixinta ee ka socota degmada Xaradheere isagoo ku tilmaamay inay tahay tilaabo weyn oo dhanka dadweynaha qaadashada kaarka codbixinta bulshada qeybaheeda kala duwan haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaal dhaqameed ayaa iyaguna muujiyay farxad iyo rajo iyagoo sheegay in diiwaangelintu ay tahay astaan nabadeed iyo mid dawladnimo maanta waa maalin weyn waa maalinkii u horeysay ee degmada Xaradheere bulshadeeda isdiiwaan galiyaan waa magaaladii u horeysay ee cadawga laga xoreeyo maxaa tiraahdaa dadkeedu si xora oo xalaala ay waxa weeye codkooda waxa weeye u soo aadaan waa ugu mahad celinaynaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay bulshada reer Xaradheere qaata kaarka biri waxa weeye uu anfacaya mustaqbalka dambe codkiina ku ciilbaha qofka doontaan iyo qofkii adiga aad danaynaysaan ayaad waxa weeye hadii Ilaahay yiraahdo dooranaysaan ama codkiina siinaysaan waxaan leeyahay Soomaaliya ha guuleysato magaaladan waa magaalo qadiimiya waa magaalo waxa weeye 15 sano cadow haystay maanta waxa guula oo farxada in waxa weeye kaarkii laga wada qaato dadkeeda dhan ay u diyaar garoobaan inay isdiiwaan galiyaan dawladdu horumar ay gaartay dalkuna doorasho u dhaqaaqay degmada Xaradheerena doorasho looga dhaqaaqay intii degmada Xaradheere u maleeyay inay degmo shabaab tahana ha garato inaysan degmo shabaab ahayn doorasho u dhaqaaqday in walbaaba kaarkaas qaato oo doorashada ku galo waxaan rabnaa codkayga inaan ku ceel baxno ninkii aan doorano iyo madaxweynaha aan doorano aan ku dooran karno aan la ku hajuubin nimanaan rabin bahashii sirta ahayd iyo hebel ugu shubta ahayd iyo la isku qafaalayay la isku xiraayana aan ka baxno saasaan doonaynaa haddaan nahay shacabka degmada Xaradheere oo muwaadiniinta Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya way ku maasan tahay haddii kaarka codbixinta nagu keentay furmaha hore dagaalka degmada Xaradheere